bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal idil ahaan meel kastoo aad joogtaan halkani waa Kalsan TV xaruntiisa magaalada Nairobi magacaygu waa Baashi Cumar ku soo dhawaada wararka bariga Afrika oo jimco walba aad ku dhex daawataan warka TV-ga Kalsan qodobada aan idinku hayo waxaa kamid ah ardayda Kenyaanka ah ee ku nool Wuhan oo ah magaaladii uu ka dilaacay caabuqa coronavirus ayaa loo diray lacag dhan 1.3 milyan oo shilinka Kenya ah afayeenka dawladda Kenya Cornel Oguna ayaa sheegay in dawladda Shiinaha ay ardayda ugu deeqday lacag dhan 500 oo kun si loogu caawiyo inay helaan daryeel ku filan. Dawladda Kenya ayaa xiriir la sameysay ardayda ku sugan Wuhan waxayna u xaqiijisay in ay u sameyn doonto adeegyo caafimaad. Master Oguna ayaa sheegay in dhammaan ardayda Kenyaanka ay caafimaad qabaan balse ay ku adkeysanayaan in dalkooda ay dib ugu soo laabtaan. Afayeenka dawladda ayaa sheegay in taasi ay qatar gelin karto Kenya haddii ay Kenyaanka dalkooda dib ugu soo laabtaan. waxa uu sheegay in baqdin laga qabo in cudurkaasi uu soo gaaro Kenya. Si kastaba haatee afayeenka dawladda Kenya oo toddobaadkan shir jaraa'id qabta ayaa ku nuxnuxsaday in ay u diyaar garoobeen sidii looga hortagi lahaa in caabuqaasi uu soo gaaro Kenya. Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa toddobaadkan meel mariyay sharci dhigaya in xabsiga la dhigo dadka boogooda internetka ku faafiya wararka naceebka. Talaabadan ayay dawladdu sheegtay in loo baahan yahay si looga hortago rabshadaha ka hor doorashooyinka ku soo wajahan dalkaasi, laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in go'aankan oo carqaladeyn doono hadalka xorta ah. Dalka Itoobiya muddo 10 sano ah oo ka mid yahay wadamada Afrika ee xukunka adag lagu maamuli jiray ayaa waxa ka dhacay isbedel siyaasadeed oo aad u weyn tan iyo markii ra'iisul wasaaraha isbedel doonka Abiy Ahmed uu xafiiska la wareegay 2 sano ka hor. Laakiin inkasta oo Abiy uu sii daayay maxaabiista siyaasadeed, suxufiyiin iyo xisbiyada mucaaradka, haddana maamulka ayaa ku dhibtooday inuu xakameeyo rabshadaha qowmiyadeed. Doorashada sanadkan ayaa loo arkaa inay tahay tijaabada ugu weyn ee lagu hubinayo in isbedelkiisa siyaasadeed uu sii jiri karo. Sharcigan cusub waxa uu ogol yahay ganaax dhan 100,000 oo lacagta Itoobiya ah oo u dhiganta 3,000 iyo xabsi ilaa 5 sano ah qofkii la wadaaga ama ka abuura baraha bulshada rabshado ama khalkhal ku dhaca bulshada. ilaa 297 xildhibaan oo goobjoog ka ahaa aqalka ayaa u codeeyay sharcigan halka 23 kaliya ay ka soo horjeesteen. Ethiopia waxa ay dhibano u noqotay foodo ayuu yiri xildhibaan Abebe Godebo. dalku waa dhul kala duwanaansho leh, sharcigana waxa uu gacan ka geysan doonaa in la isku dheelitiro kala jaadnimadaas ayuu ku daray hadalkiisa. qaar badan oo kamid ah xildhibaanadii ka soo horjeestay sharcigan ayaa sheegay in xadgudub ay ku tahay damaanad qaadida dastuuriga ee xorriyadda hadalka. Abiy oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel sanadkii la soo dhaafay ayaa ballan qaaday in sanadkan doorashadu noqon doonto mid xor iyo xalaal ah. waa tahay daawadayaal gabagabadii wararka bariga Afrika ayaynu isla soo gaarnay. nin lagu tuhunsan yahay in uu ka tirsan yahay Al-Shabaab ayaa isu soo dhiibay hay'adaha amniga ee Mandera. Isdhiibistiisa ayaa ku soo beegantay maalin kadib markii 3 qof lagu dilay weerar bas ah oo ka dhacay gobolka Waqooyi Bari Kenya. Salaad Haajir Jimcaale oo 23 sano jir ah ayaa isu soo dhiibay hay'adaha amniga magaalada Ceelwaaq ee koonfurta Mandera. Wakiilka gobolka Mandera ayaa sheegay in tuhmanaha uu sita qori AK-47 ah oo lagu hayo saldhigga booliska Ceelwaaq si su'aalo loo weydiiyo. warbixino hordhac ah oo laga helayo waxa ay sheegayaan in tuhmanaha uu ka yimid deegaanka Asxaabatu ee Ramu ee Waqooyiga Mandera waxa uu watay labis military iyo joornaalo. waa tahay daawadayaal warbixintaasi ayaa ugu dambeysay wararkii bariga Afrika oo aad kala socoteen Kalsan TV xaruntiisa magaalada Nairobi. waxaan idin la socodsiinay anigoo ah Baashi Cumar. intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo amaane Allah.